هبشد قفكا مقن مرودي دي بدنا مالكي بتبنجر دمبلنا كما قشا مالكي بتبنجر دمبلنا كما قشا ماينكيغو جعلا هبشد قفكا مقن مرودي دي بدنا مالكي بتبنجر دمبلنا كما قشا مالكي بتبنجر دمبلنا كما قشا ماينكيغو جعلا محانيغا إيغو مودن مرنا آنان ديني نفط ماذي ليدا حيوا واديغا معانو sidaad u jeedaan waxaan soo dhaweynaynaa maantay oo noo imaatay fanaanad qaali nagu ah xaliimo gobaad iyo abwaan qaali ah asagana nabiil buule ku soo dhawow xaliimo Nairobi waa mahadsantahay walaalo thank you waan dhawahay alxamdulillah ilaahay wuu inoo wad keenay ma sha Allah marka dhamaantiin aad iyo aad baan idin wada salaamaya thank you guys balka waran intaanoo qof oo Nairobi kaaga timid oo maanta dhan qoraxda u taagneed si adiga ay wax badan kugu soo dhaweeyaan Nairobi aad iyo aad walaal waan idinkaga mahadcelinayaa dhamaantiin anna waan idin jecelahay ogaadaya I love you balka waran dareenkaaga markaad aragtay Soomaali intaan la eeg oo ku taagan airportka maxaa dareentay wallahi waa I feel good it feels good ma sha Allah aad iyo aad baan muxuu ahaa happy wahay qorshaha aad u imaatay Nairobi waxa yar aad oo tafaasiil ka bixinaya anigu soo noqonaya dhagajila iyo bulshaawi iyo kooxda fandis baan dhamaan sax bal faahfaahin ka sii dadka ina daawanaya ee showgaaga sugaya in badan oo Soomaali oo xaafada Isli iyo guud ahaan Nairobi ku nool way sugayaan showgaaga oo wala hadalaya marka adigana tafaasiil ka sii insha Allah horta muxuu ahaa show baan oo dhacayo habeenka jaceylka 14 bisha marka waa ani iyo fanaaniinteeda dhamaanteen waan isgarab joognaa habeenka marka insha Allah habeenka la soo wada baxreer Nairobi fankayga Nairobi buu ka bilowday marka one more time baa lagu celinayaa marka I see you guys insha Allah aad iyo aad baan waxaan soo weynaa xariib gobaad waxaan shacabka reer Nairobi ugu baaqiyaa waxa inoo balana 14 bisha kooxda fandisbaan fanaaniintii kale oo iyaguna noo imaan doona oo xaliimo hadda igu soo horeysay Axmed Saki oo soo dhaweyn doona iyaguna sidoo kale gudoomiyay kooxda waa kan Al-Ustaad Maxamed Abdullahi Diiri Bushaawi ku soo dhaweynaya insha Allah Bushaawi soo diyaarnta hay waxaan aad soo dhaweynaynaa oo aan halkan isugu nimid dhamaanteen si aan soo dhaweyn lahayn walaaladeen fanaanadana qaaliga xaliimo gobaad iyo walaalkeen Al-Ustaad Nabiil Bulle oo show kule magaalada Nairobi maalinta jacaylka 14 bisha February iyo hoolka la yiraahdo Sarkazi Dome waxa show kula jira fanaanka weynaysna Axmed Saki nimcaan hilaac muhaashire xamdayar iyo kooxda fandisman iqrayray adigu wixii aad ka tagay fanaaniin aad u badan waa showgi waxaan oran karaa waa showgi fanaaniinta ugu badan ay ka qayb galayaan ee Nairobi ka dhacaya marka yaanu seegi maadooran lahaa showgaasi waa habeenka 14 February iyo halkii showidaan ku dhigi jiray Nagara Sarkazi Dome aad bad ma santiin qiimaha si taageerayaasha xaliimo iyo Axmed Zaki ay ugu diyaar garoobaan qiimaha habeenka waxa lagu soo galay showga 2,000 shilin oo kaliya oo shilinka Kenya waa inta way qiimo heesa badan way jiraan iyo waxyaabo badan ay ku qancaan dadka wax badan baan u diogna nabil balka waran maanta imaanshahaga Nairobi wallahi imaanshahayga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxay soo dhaweeyay asxaab tira badan fanaaniintii groupkii kooxdeedii abanadeedii marka aad baan ugu faraxsanahay waxaad qayb ka tahay xaliimo groupkeeda iyo Axmed Zaki heesa badan waad u laxamaysay oo waad u sameysay qaybaad ka tahay adigana showga anigu kale martiin baan asxaabtayda soo booqday laakiin ha groupka Nairobi Finland Gulastimba Safwan Hala Axmed Saki Xaliimo Gobaad
nasiib yare xabbi walbadii xamse xadaari dhammaantood baa anigoo nasiib cali ah waxaan halkan ka soo dhaweynayaa fanaanadeena qaaliga xalimo gobaad axmed zaki legend the one and only my brother waxaan dhihi karaa nabiil bulle marna walaalkaya isagana halkan aan ka soo dhaweynayo waxaan leeyahay Nairobi bishaaro showga la qaban doono waxa waa showga ugu ballaarnaa show la qabto abid dharkii cascasaana waa soo xiranaysaan intii is jeclaadna waxaan ku yiri intii isku kacsaneedba way heshiin doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo kala yalaab Axmed Zaki wuu soo socdaa nimcaan hilaac wuu soo socdaa xamdo yarna way soo socotaa fundis baana dhammaan way wada joogaan looma kala harin hoolka waa Sarkazidum Ingara weeye lacagtana waa hala yar baan kaga dhignay 2,000 shilin afar fanaan oo aan weli aanan dhicin weli waa iskoor aan hore u dhicin waaye heeso cusub baan la wada qaadi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo iyo intii hore u jecleedeen waqtigaas kale laab aadan idin salaamayaa xalimo gobaad waxaan leenahay Nairobi ku soo dhawow iyo ustaadkeena weyn nabiil bulle waxaan leenahay soo dhawaada sidaan uga soo qayb galnay aan idin soo dhaweynay baa naga daacada ma sha Allah saasoo kalena insha Allah waxaan rajeynayaa 14 February iyada sida dib u dhacdo insha Allah waqti qurux badan la wada qaato waqti fiican la wada qaato maanta waxaan soo dhaweynaynaa meeshan anagoo dhan waxaan iskugu imaanaynaa soo dhaweyno xalimo gobaad fanaanadeena weyn qaaliga iyo ustaad nabiil buule anagoo fundis baan iyo dhammaan asxaabta Nairobi waxaan ku leenahay ku soo dhawow Nairobi welcome to Nairobi waxaan soo dhaweynayaa walaashay xalimo waxaan leeyahay welcome to Nairobi habeenka 14 February-ga yaan la moogaan lagana maqnaan macnaha waxba dhar cascas xataa yaan la isku shidan fiyoore le aniga hala ii keeno taas le waay anigoo qaali aragsana waxaan soo dhaweynayaa walaashay xalimo gobaad soo dhawow habeenkaas yaa la moogaan af Soomaali ma aqaani السلام عليكم waxaan halkan ka soo dhaweynayaa fanaanadeeda weyn xalimo gobaad baa macaan ku soo dhaw magaalada Nairobi waa habeenka jacaylka 14 February inoo balana welcome waxaan soo dhaweynayaa fanaanadeeda qaaliga marna aan taageero aan aad ku jeclaa walaasheeda xalimo gobaad baa waxaan ku leeyahay karibu Kenya ku soo dhaw thank you marka hore fanaanadeena qaaliga soo dhaweynayna waxaan leeyahay fanaanada kaliya taageero oo taageero weyn oo ahay antan waa aamin laan horteeda taaginta marka waan soo dhaweynayaa soo dhawaad waxaad weydiin lahayd haddaad wax weydiin lahayd waxaan ku oran lahaa waxaan halkan taaganahay soo dhaweynaynaa walaashay xalimo gobaad waxaan ku leenahay ku soo dhaw magaaladaadii aad iyo aad ku soo dhaweynaynaa intan qof aad ku soo dhaweynaysaa insha Allah Nairobi waxaan u sheegaynaa taariikh 14 inay qodbaha laga baxayo tiirarka taariikhaha aad iyo aad halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa walaashin xalimo gobaad we love you iyo walaalkeen nabiil buule hala baasha Allah habeenkaas bismillaah halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa walaashin qaaliga magaceeda aan xalimo ma aqaan aan ku baxsay aayaha nolosheeda welcome to Nairobi waxaan leenahay welcome to Nairobi showga waxaan leenahay reer Nairobi haddaan nahay dad nasiib laan nahay maalintii jacaylkii xalimo gobaad bas la helnay iyo Axmed Zaki iyo heesa jacayla marka waxaan leenahay welcome to Nairobi walaashay ugu qaali ah in badan baan ku sugaynaa maanta banaanka ku joognay aad baan ku jecelnaa waa maadsantaa thank you maxalda Sharif Allah xalimo gobaad taageeradeeda weyn ka mid ahay aad u taageeraa my sister soo dhawow waxaan ka shideynaa xalfadaada xalimo gobaad in the house alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh أنا مقعد ويا محمد حريت وحمانت سي شرف وفعنا بدنا نوصل وينا ما يسيستا حليم جوات وهي سيدة أدو حسين جري ما أنتنا فرصة دي تهينا أجستاجو مركو حن لي ويلكم تو نيروبي شو هذا إن شاء الله وديسينا وكلك عيننا دولة إن شاء الله نبيل بولا ويلكم تو نيروبي هاوينك 14 فبراير يلا موجعني إن شاء الله thank you ما شاء الله waxaan soo dhaweynaynaa walaasheena xalimo gobaad in badan aan sugaynay haddana 14 ma sha Allah waan doonaa oo ka soo qayb gal doonaa saa ugu soo dhaweynaa garoonkan isla qof inuu hari waayo umaleeyo ma ya saa sharciga ka yaalo waqti badan la sugaayay insha Allah